السلام عليكم ورحمة الله. ورقد مقعي كما قرنين لكن مقعي وحكو قرنا الدكتور عبد فارح. أنا كقاتل لك 10 كاسقة إن شاء الله وعكار لنا ما أنت مقعي وحال لها حسين عبد أيوب وادي مقشن صمرت ها 10 كمان قاتل وحوها حبد حنون marka magacaygu ka hoos ku qoran sida hadda sawirka ka muuqato sawirkan sida ka muuqato kulli waxaad dareemi kartaan inuu ninkan aad u xanuunsanayo xabadka maxaa keenay xabad xanuun marka saas waa 10ka si soo muxuu yahay xabad xanuun xabad xanuun waa xanuun walba oo laga dareemo inta u dhaxayso halka kalxanta ah ilaa iyo inta meelaha ugu dambaysa feeraha marka waxaan u qaybiyay laba qaybood xanuunna ka iman karo muxuu ahaa wadnaha iyo kuwa aan ka imanaynin wadnaha oo ka imaanayo inta u dhaxayso jirka xabadka inta hadda aan tilmaamay oo ahaa kalxanta ilaa iyo inta u dhaxayso intaas maxaa u dhaxeeya marka kalxanta ilaa iyo inta maxaa u dhaxeeya waxyaabo badan ayaa u dhaxeeyo waxaan ka bilaabi kuwa aanan muxuu ahaa xanuunada aanan ka imaanaynin wadnaha xanuunada aanan ka imaanaynin wadnaha waxay noqon karaan xanuuno ka imaanayo muxuu ahaa maqaarka waa maqaarka qaybta ugu koreysa weye haddii jiraan xanuunada maqaarka ah oo waxaa dhici karta marka inuu qofka xabadka qaybta xanuun yani yimaado waxaa kaloo dhici karto murqaha hadduu qofka xanuun ka haya laga yaabo inuu xalay oo kaleeto habeen uu si qaldan u seexdo oo kaleeto iyagana waxaa iman karo inuu qofka xabad xanuunka uu dareemo waxaa kaloo iyagana jiro lafaha iyo muxuu ahaa feeraha waxay ku xiran yihiin qaybtan laftan dhexe ee halkaa ku taallo waxaa isku haya carjow waqtiyo badan marka waxaa dhacdo xanuunno inay ku dhacaan carjowdaas iyo muxuu ahaa lafaha naftirkooda xanuunno ku dhaco caadi waxaa jiro la yaqaano marka iyagana way keeni karaan inuu qofka xabadka xanuuno waxaa kaloo iyagana keeni kara xanuunada muxuu ahaa sambabada waxaa si fiican loogu sheegay doctorka hadda naga muxuu ahaa doctor raagi yaa si fiican loogu sheegay aad u fara badan yihiin waxyaabaha keeni karo sambabada ka iman karo waxaa ugu dhow hergebka qofka markii uu hergeb ku dhaco waxaa laga yaabaa inuu qofka xanuun ka dareemo xabadka marka waxaa kaloo iyadana jiro hunguri mareenka iyadana waxaa ka iman karo xanuunadaas oo iyagana ay laba mid noqon karaan inay yihiin yani hunguri mareenka naftirkiisa xanuunada ku dhaco caadiga inay yani yihiin iyo waxaa kaloo dhici karta iyadana inay kuwa caloosha ka imaanayo oo qofka markuu gaaska ku kaco inuu gaaska dib intuu ugu soo laabto qofkii uu boogeeyo oo meesha boog ka dhigo saa daraadeed marka qofka iyadana xanuun ku keenaa dhici karta caloosha naftirkeeda hadduu qofka alsar iyo waxyaaba noocaas qabay way keeni karaan inay macnaha keenaan marka qaybahaas dhan waa qaybo la xiriira maaha macnaha intooda badan wadnaha la xiriira maaha kuwa wadnaha la xiriirana maanta insha allah wax ka sheegi doonaa marka kuwa iyaga ah qofka markuu maanta yani uu u tago dhakhtar oo kow ugu horeyso dhakhtarka xabadka ay xanuunayaa tiri marka hore intuusan qaadin muxuu ahaa qaybta kaleeta haddaan ka sheekeynayni uusan u qaadanin wuxuu marka hore tijaabinayaa uu iska hubini in aynan ahayn waxaan wax ka yimid wadnaha inaynan ahayn marka hore fiirinaya kadib marka su-aalihii wixii ka dambeeyey iyo macnaha inuu aad kusii wareysto kusii raacraacay yani tahay xanuunada gudaha ka imaanayo idil waxaa weeye xanuuno isku egeg calaamadahooda marka hore marka dhakhtarka marka uu baarayo su-aalo badan ayuu kaa weydiinayaa markii aad sheegatid xabadka ay xanuunayaan maxaa yeelay waxay isugu jiraan laba nooc kuwa khatar ah iyo kuwa laga yaabo in aynan khatar aada sii ahayn ka soco kuwa wadnaha ka imaanayo markaan ka hadlayo wadnaha wuxuu ka samaysan yahay muruq waa xubinka yarka dhexda ku jira muruqaas muruqaha kale la mid maaha waa muruq special ah oo khaas ah muruqaas wuxuu tuuraa uu saaraa dhiig wuxuuna mariyaa halbowlayaashaas cascas aad aragtaan kuwan buluuga aad aragtaan jirka intiisa kale waxay ka keenaan dhiigga sidaas u shaqeeyaa muxuu dhiigga yani u tuurayaa oo u geynayaa xubnaha kale wuxuu xubnaha kale u geynayaa dhiig waxaa yeelay xubin walba siduu noo sheegay doctorka waxay u baahan tahay oo jirka ka mid ah oxygen
sida marka xubin walba oo jirka ka mid ah ee ugu baahan tahay oxygen iyo isaga nafirkiisa oxygen ugu baahan yahay marka wadnaha sida hadduu ugu baahan yahay marka wadnaha muxuu ahaa isaga nafirkiisa oxygen iyo nafaqo ugu baahan yahay qaabku ku helaa marka isaga ama xanuun uu ku keenaa marka maxaa keenaya marka xanuunkiisa yaa waxaan rabin aan macnaha wax yar ka sheego sawir ayaan meeshan soo qaatay wadnihii nafirkiisa hadda ayaan tusayaan soo qaadnay gebigiisa meeshan soo dhigay wadnaha marka sida xididada meelihii kale ay u gaarsiisanayeen isagana wuxuu leeyahay xididahan uu leeyahay quruxda badan iyo laamahan waa marka uu caafimaadka qabo uu fiican yahay sidanay nadiif u yihiin waqtiyo badan marka waxaa dhacda marka in ay yani xididadan iyaga ah wax mari waayaan oo uu halkaa xididka hadda marka waxaad ka dareemaysaan meeshaas inay xiran tahay oo qaybtan iyada hoose uusan dhiigga soo gaaraynin maxaa dhacaya marka maxaa keenaya in dhiig mari waayo halkaas iyada hadda calaamadda marka aan tilmaamnay ka soco muxuu ahaa waxyaabo badan ayaa keeni kara waxa ugu muhiimsan waxaa waaye atheroma waxaa la dhihi macnaha black oo meel ku samaysmo waxaa weeye inuu yani dufan ku samaysmo macnaha uu yani ku samaysmo xididka marka uu caadi yahay markiisa hore sidaas uu eegyahay marka qofka uu dufanka marka uu isticmaalo muddo dheer oo jirkiisa ay ku badato waxaa dhacaya marka sida hadda meesha sawirka meesha jaallaha ka muuqato in ay tartiib waxaa ku dhalanaya qaybtiisa hoose waxaa kusoo dhalanayo dufanka isagaa qofka marka haddii intii lagu sheego la dhaho dufankaaga waa badan yahay uusan iska sii kontroolin maxaa imanaya marka qaybta kasii hooseysaa imanayso dufankii wuu sii badanaya ilaa qofku dufanu sii cunaya way sii badanaysaa waxaa markaa sii wehelin doono unugyo kalaa sii wehelin doono unugyada iyadaa marka meeshii way sii adkaynayaano meeshii way sii adkaani ugu dambayntii waxaa iman doona marka inay wixii iyaga ahaa intay bararaan heer intay weynaadaan gaaraan qarxaan marka meel hadday qaraxdo ama ayna dilaacdana waxaan ku garanaynaa aan ku naqaanaa inay meeshii xinjir yeelato oo dhiiggii uu siduu meeshii ay u fiicnaato u biskooto xinjir marka meeshan waa meel dhiig marayay haddii ay xinjir ku dhalato meesha waxaa marka imanaysa inay xiranto oo uu dhiiggii macnaha mari waayo oo hore u socon waayo dhiiggii marka xanuuno ayaa iman kara marka hore u soco marka xanuunada iman karo marka waxaa weeye marka uu cusub yahay oo uu kusoo dhasho qofka waxaa weeye oo xiray in qayb ka mid ah xididka iyadayd oo dhiigga marayay qayb ka mid ah marka dufanka uu xiro waxaa la dhahayaa marka stable anginaha marka waxaa lagu garanayaa qofka marka uu shaqo galo uu dhaqaaqo oo howl sameeyo oo meel fuulo oo kaleeto ayaa waxaa imanaysa marka qofka inuu xanuun dareemo hadduu nasto uu meel fadhiistana qofkii xanuunkii uu ka baaba'aya maxaa yeelay marka uu nasto dhiiggii tartiiba u socdaa meeshii uu marayay jaanis ku maruu helaya qofka u nasto xanuun ma dareemaya laakiin mar alaali markuu howl sameeyo oo dhiiggu inuu xoog ku socdo imaado qofkii xanuun dareemaya oo markuu meel fal wuxuu ku leeyahay xanuunan dareemaya marka uu nastana xanuunkii ma jiro oo uu fiican yahay marka waxaa lagu garanayaa qofka isaga inuu qabo qaybta stable anginaha waxa loo yaqaan xanuunka stable anginaha qayb ka hooseysaa jirta marka waa markii intuu weynaado uu qarax oo qarax sameeyo oo meesha ay qaraxdo waxaa imanaya marka inay yani dhiig uu meeshii mari waayo ma mar badan ayaba dhacdaba inuu qayb intay ka go'do xinjirta iyada hayd sii xirto xididdo kaleeto oo qayb ka mid ah marka oxygen gaari waa maxaa imanaya marka meesha ay hawsha halkaas marayso waxaa imanaya marka waxa loo yaqaano heart attack ama markaad isbitaallada tagtaan laga yaabo inaad dhakhaatiirta ka maqashaan myocardial infection waxa la dhihi heart attack maxaad ahayd marka macnaha in isweydiiyo iska fiican tahay intaan heart attack u gudbin waxaa jira marar kaleeto oo xididka wadnaha xididada dhiigga siiya mar waxaa jirta ay dubaaxiyaan aaday u dubaaxiyaan dubaaxintaa marka ay sameeyaan marka way isku laablaabmayaan laablaabitiinka ay samaynayaan daraaddeed marka waxaa laga yaabaa inaynan qaybo ka mida marka wadnaha aynan gaarin dhiig saas marka qofka iyada taas waxay ku imaadaa iyadana digniin la-aan tan iyada uu gebigeeda xirayo midda yani uu xirayo oo xinjirta ilaa waxan isla wada xiraya meesha waxaa weeye qofka hadduu nasasho uu ku jiro uu nasanayo uu waxba qabanaynin iyo hadduu wax qabanayaba labadaba xanuun wuu dareemaya qofka marka muxuu yahay heart attack ka socon heart attack waxaa weeye sida hadda geeskaasi kaga muuqato wadnii qofkan hadda banaankaas la soo dhigay dhinacaas sidii kaga muuqato laba xidid ayaa meesha marayo xididna wuu cad yahay midna waa guduud marka kaa cad macnaheedu waxaa weeye kor uu kasoo xiran yahay oo dhiig maba wadaba
qaybtii uu marka dhiigga siinayay yaa xirantay oo macnaha yaa dhimatay way dhimanaysaa maxaa yeelay dad beer waraabin jirtay beerta iyada hayda biyo ka joojiso macnaheedu waxa way beerta iyada way dhimanaysaa marka intaas hadday dhimato lagana rabo wadnihii inuu daqiiqadii 5 litir oo dhiiga uu tuurayo hawsha ayada adag uu qabanayo waxaa imanaya marka jawaabta uu bixinaya mar walba waxaa weeye xanuun aad ah oo innaba caadi ahayn kadibna waxaa imanaya macnaha qofkii inuu u dhintaaba macquul oo waa loo dhintaa in badan marka haddaanan waqtiga laga gaarin xilli fiican oo laga daweynin hada taagana waa saas ka soco xanuunada marka calaamadaha lagu gartaa calaamadaha lagu garto calaamadihiisa qofka wuxuu ka sheeganayaa halkaasaa lagaga fadhiyaa ku dhihi waxba yani halkaa yani iga haysto sidoo qofka iyadoo la riixiyo kaleeto ama in wax lagu ceejiyo kale qofka halkaa ka dareemaya bartayda ha ka dareemo maba xuma haddana wuxuu qofka sii dareemayo kaleeto xanuunada garbihii ay u sii gudbayaan hada sida dhaxda sawirka dhaxda ka muuqato garbihii u gudbayaa waxaa laga yaabaa qofkii ilaa dhinacan iyo daanka inuu ka dareemo waxaa laga yaabaa inuu dhabarka ka sii dareemo marka waa calaamadaha ugu muhiimsan ee lagu garto macnaha qofka marka inuu wax sii yihiin inaad yacni dareemo qofka hadduu ku halkaas laga riixayaa xanuunka isagaana uu usii gudbayay garbihii oo macnaha ilaa iyo daankii dhinacan uu ka dareemaya xanuun qofka isaga marka waxaa weeye waa inaad yani sida ugu degdeg badan dhakhtarkii macnaha uu raadsaday weeye waxaa kaloo qofku dareemi wax la dhaho light headedness xanuun madax xanuun aad ahayn oo khafiif ah iyo qofka dareemaya iyo dhidid laga yaabo inay weliba ugu heliso lalabo ka soco xanuunadan iyaga angiina waa luqad latini ah marka angiina waa un xanuun markaan angiina leeyahay xanuun ka imanaya wadnaha weeye marka waxaa halis u ah qof walba oo dhaxal macnaha u leh oo hooyadii ama aabihii ama ay qabeen ama reerka qof qaba uu jiro saa daraaddeed marka qofka waxaa laga yaabaa inuu iyadana ugu imaado dadka uu dufankooda sarreeyo marka dufanka hadduu qofka sarreeyo waa inuu qofka sida uu yani ugu iman karaa oo halis u yahay dadka dhiigkarka qaba iyo sakarowga labada ayaana uu keeni karaa sigaarka dadka sigaarka caba sidoo kaleeto dumarka iyo ragga marka isbarbar dhigo ragga aad ugu badan buurida macnaha dadka aad u burburan waa iyagana sidoo kaleeto stresska dadka aan jimicsan da-da hadday ka weyn tahay 50 sano dumar iyo ragba marka waa iyada meesha way ku jirtaa sida loo baaro qaabita calaamada maxaa la jiray calaamadahan soo sheegnay yaa horta mar walbo aad muhiim u ah oo dhakhtarka marka uu ku wareysanayo calaamadahaas hadduu kaa helo marka macnaha asaga qayb uu dhiganaya oo aad ay muhiim u yihiin kadib yaa wuxuu samaynaya marka dhiig inuu kaa baaro dhiigga muxuu kaaga baari dufankaagu ayuu eegaya wuxuu eegi anemia inaa qabtid anemiyada qofka marka dhiig ku yarta waxaa laga yahay xididada sidii la rabay inaynu gaarin saa daraaddeed hadduu qofka xubinka isaga tayroidka loo yaqaano hadduu cillada uu ka qabo kaleeto iyadana waa muxuu ahaa waa way dhici kartaa uu kaa baari dhakhtarka waxaa kaloo uu kaa baaraya cudurrada kelyaha iyo kuwa wadnahaba uu baari waxaa kaloo la saaraa ECG wax la dhihi iyo myocardial perfusion waa iyadana qalab kale lagu baaro ultrasound MRI iyo angiogram waxyaabahan kulli wax dhakhtarka uu ku baaro weeye marka ka soco dawadiisa waxaa weeye macnaha qofka habdhaqanka iyo habnololeedkiisa mar walba lagala hadlaa oo waxaa lihi jiray muu dhakhtarka mar walba kaa waanin wuxuu ku leeyahay saan ha samaynin maxaa yeele hadduu dawo walba ku siinayo qofku cholesterolkiisa uusan controlin ama aad u qaadanayo dufanka iyo waxyaabahan u isticmaalay ama dawadii sokortii iyo ama dhiigkarkii uusan si fiican u qaadanaynin macnaha waxaa weeye waxaan wax tegay weligiis ma ahaanayo dawooyinka kale lagu daweeyaa aspirin statin beta blocker calcium surgery waxaan kulli waxaa leeyi jiray waxaa weeye waxyaabaha lagu daweeye weye marka ka soco talo ahaan ugu dambeynti talo sideed uga hortegi kartaa marka xanuunkan isaga waxaad uga hortegi kartaa inaad cunno fiican qaadatid oo macnaha cunno fiican cuntid sigaarka in badan waa lagu soo celceliyey sigaarka macnaha in la iska daayo exercise iyo jimicsi qofka inuu sameeyo dhiigkarki iyo sokorti labadaba qofka inuu macnaha iyaga naftarkooda iska daweeyo cholesterolka macnaha inuu iyadana qofka uu iska daweeyo naftarkeeda ama uu iskana reduce gareeyo uu iska yareeyo alcoholka marka iyadana inuu qofka qaato waaba qalad gebigeedaba inuu iska daayo wey haddaad qabtid ka waran xanuunkan isaga ama dhakhtarka uu kuusoo sheegay ku dhahay waxaad qabtaa angiina marka calaamadaha aan soo sheegnay marka haddaad leedahay daawana aadan haysanin marka waa inaad waxaa laga yaabaa inuu khatar isku sii bedelo waa inaad isla markiiba caawimaad raasatid marka haddii calaamadihii ay tegi laayihiin ka waran intaad
adoo caawinaad raasida hataa waad qabtaa calaamadiina weli way tegi laayihin marka iyada waxaa weye inaad ku khasbanta inaad isbitaalka macnaha isdegdega ku tagtid oo baaritaan dheeriya lagu sii sameeya marka aduu xanuun ku qabto aduu taagan oo kaleeto waa inaad fadhiisatid maxaa yeelay exerciseka aad ama hawsha aad ku jirtid ama istaagnida aad taagan tahay waxay mar walba keenaysaa macnaha qofka in uu jirkiisii shaqeeyo marka waa inaad fadhiisatid haddii fadhiga hataa aad kusii kalsoonaaweed haddii inaad seexatid ilaa aad markaas ayada wax caawimaad aad ka helayso marka intaasaan kusoo gabagabeynaya aad iyo aad mahadsantahay